qaxootiga Soomaaliya ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee ku yaala gobolka Geeska Afrika ayaa markii ugu horeysay lagaga hadlay arrimahooda kulan heer madaxweyne ah oo ay ka qayb galeen madaxweynayaasha urur goboleedka IGAD. Gunaanadkii shirka kadib ayaa gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Axmed Daahir Cabdikariim Nuur wuxuu BBC-da u sheegay inay dhiirigelinayaan in qaxootigu iskood dalkooda dib ugu laabtaan. محمد عبد الرحمن شيخ ayaa weydiiyay waxa uu shirkaasi kaga duwan yahay kuwii ka horeeyay lagaga hadli jiray arrimaha qaxootiga. shirkani aad ayuu uga duwanaa shirarkii dhacay muddooyinkii la soo dhaafay waa markii ugu horeysay oo sida xogaalka u tiimba gobolka ilaa 6 madaxweynayaal ah iyo geeska Afrika kaliya maaha Yemen ay ku jirto wadamada ugu badan oo qaxootiga Soomaaliya ku sugan yihiin ay isugu yimaadaan oo ay ka horeysay wasiirada isla gobolku inay yimaadaan oo ay ka horeysay khubaro ka kala socota 6daas wadan iyo Yemen inay muddo dheer diyaar garow u galaan go'aanadii ka soo bixi lahaa shirkaas. waxaad sheegtay in arinta qaxootiga Soomaaliya ay gaartay heer ay ka arinsadaan madaxda gobolka marka ma lagu heshiiyay qaabka dadkaasi loogu celinayo dalkooda. ma aha shirka go'aankiisu kaliya qaabka dadka lagu celinayo shirku wajiyo badan ayuu taabanayay. wajiga ugu horeeya wuxuu ahaa dhammaan qaxootiga Soomaalida gaar ahaan iyo qaxooti kasta ee Afrikaan oo gobolkan ku sugan wadamada ay joogaan inay si sharaf iyo xushmad sida muwaadiniinta kale ee dalkooda lagu hayo oo dhaqdhaqaaqooda shaqo-gelintooda waa la socotaa heshiiskii xataa ahaa labada wadan ee Soomaaliya madaxweynaha Kenya ay galeen in dadkii inta waxbarasho iyo macaahid iyo wax loogu sameeyo marka dadka inaan la khasbin inta ay joogaan dalalkaana noloshooda si sharaf leh lagu dhaqo sidoo kale loogu diyaariyo dib u celin rabitaankooda ayadoo Soomaaliya lagu gacan siinaa marka labada wajiga waa taabanay wajiga saddexaadna wuxuu ahaa international community hay'ada caalamiga inay gacan ku siiyaan dadka Soomaalida ah dadka Soomaaliyeed dawladoodu sidii dadkooda u dejisan lahaayeen. Soomaaliya xilligan la joogo waxaa ka taagan abaar ba'an oo dad ayaaba ka barakacaya marka maxaad ugu talagasheen qaxootiga ee ka laabanaya Kenya ee raba inay Soomaaliya ku laabtaan. hadda nuxurka heshiiska hoos u sii akhrisid waxa lagu dagaalamayo waa dadka Soomaalida dawladihii gobolka ee dadkeena haya ayaa waxay leeyihiin muwaadiniinta dalalkeena oo kale ayaan ka dhigaynaa macnaheedu waxay tahay in dadkii Soomaalida aysan dalkoodii ku noqon oo ay abid noqdaan dad muwaadiniin dalalka kale adduunkana waxa la isku dhaafay waa dadka waay marka dadkani inay la qaybsadaan dhibka dalkooda ka jira oo dadkooda la mid noqdaan horta waa wax mabda guud ah haddaan si hoose u sugo jawaabta su'aashaada waxay tahay qoyskii ka kooban aabe iyo hooyo iyo 4 cunug ala qof madaxa ayaa waxa la siiyaa $200 $200 bay maalinta u horeysa helayaan 6 bilood oo ku xigta waxa la siiyaa cunto iyo $200 waxbarashadooda 9 bilood in laga kabo ayaa meelan lagu bilaabay meelan la sameeynaya marka lama gaarin xilligii dadkan dawladda Soomaaliyeed ayada mas'uuliyadda leh ay guriyo iyo wixii nolol ay u baahnaadeen dadkooda ay u wada sameyn lahayd laakiin wax ku filan ay ku meel gaari karaan oo mararka qaarkood ay uga nolol rooyihiin kuwa hore u deganaa barakacayaasha ayaa la siiyaa. qaxootiga Soomaalida ah wuxuu ku baahsan yahay dalalka gobolka oo min Yemen ilaa Itoobiya way ku nool yihiin marka haddii lagu guuleysto dib u celinta kuwa ku nool Kenya maxaa xigi doona. Kenya sanad iyo bar ka hor 400,000 oo Soomaaliya ayaa ku sugnay maanta 240,000 kaliya ku sugan 60,000 oo qof rabitaankooda ayaa lagu gacan siiyay oo sanadkii la soo dhaafay sanadkan bilowgiisa kaliya ay tageen 120,000 oo kamid ah dad oo ka baxsan intaas iskood ayay u tageen dalka ugu noqdeen ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa in dalkeena inta hagaago oo dawladda hadda dhalatay barnaamijyo dhaqaalahooda iyo noloshooda ay dadka barakacayaasha hore u ahaa ay ku soo noqonayaan lagu dejinayo inta la timaado inay dhammaantood bixiriyaha la xiro. kaasi wuxuu ahaa Axmed Daahir Cabdikariim Nuur oo warramayay Maxamed Cabdi Raxmaan.